Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ummadda reer Somalilan magacaygu waa Sayid Cumar Maxamed Jaamac. Sayid Cumar Maxamed Jaamac Geydh. Aad iyo aad ayaan u salaamayaa ummadda reer Somalilan. Waxaanan leeyahay hadduu eebbe xugmaayo waxaa la leeyahay Britole farmaajaa imanaya, hebel baa imanaya, Abiy Axmed baa imanaya, Somalilan iyo Soomaaliya la isku darayaa. Somalilan waa qaran maanta cagaheeda ku taagan, nabadgelyo haysata, dowlad kala dambeyn leh, madaxweyne leh, baarlamaan leh, golo deegaan leh, dhisan oo cagaheeda ku taagan oo nabadgelyo joogta, dalkeeda maamusha. Haddii eebbe xugmaayo anigu waxaan leeyahay ummadda reer Somalilan masiirkeeda ay 30 sannadood soo dhisaysay iyaynaan ku ciyaarin baan leeyahay. Farmaajo farmaajo waa madaxweyne Soomaaliyeed, inaguna Somalilan baynu nahay. Markii horena iyaguna waxay ahaayeen Soomaalidii Talyaanigu gumaysan jiray, inaguna Soomaalidii Ingiriisku gumaysan jiray. Markii horeba isku meel maynaan ahayn, gumaystana inama wada gumaysan, laba dowladood oo isu tegay baynu ahayn oo mid waliba calankeeda mar qaadatay. Marka anigu waxaan leeyahay ummadda reer Somalilan ee leh farmaajaa imanaya, farmaajo Soomaaliya waxa ka soo dhigo Soomaalida kala wada qoqobanee dhowr saddex madaxweyne meelaha qaar loo magacaabay ha soo dhiso oo gacantiisa ha soo geliyo, markaa innaga haynoo yimaado. Anigu waxaan leeyahay haddaan aftideeda ka dhiibto, midho geed saaran midho guud saaran midho geed saaran looma daadiyo ay Soomaalidu ku mahmada. Marka raalli ahaada aayaroo dhalatay ama Somalilan waan raalli gelinayaa. Dee wax ummad dhan oo dal ah oo madaxweyne leh oo hadduu eebbe idinkeeda leeyahay kala dambeyn leh oo dhisan aayaroo dhalatay inta raalli ahaada la yidhahdo gacantiisa soo galaysa. dee Somalilan maaha. Somalilan maanta waa dal waa dal loo soo halgamay. Rajiimkii Afrika mar ugu quwadda weynaa ama dee quwadihii Afrika ka mid ahaa uu ku xadgudbay, fikri yeeshay, dalkoodii soo ceshaday, ka taliya, nabadgelyo haysta, amni haysta, calan haysta, aqoonsigana dee ilaahay baa haya. dad islaamaynu nahay, aqoonsigeennuna waa laa ilaaha illa allah maxamadu rasuulullah. aqoonsi kale uma baahninba, haba haystaanba. laakiin maanta faragelin uma baahnin, faragelin uma baahnin. Farmaajo hadduu dee imanayo waa madaxweyne Soomaaliyeed, sidii haddii uu madaxweyne kala yimaadaba dee loo soo dhoweyn lahaa un. haddii loo soo dhoweeyo anigu waxba wax si weyn oo dhibaato leh uma arko. laakiinse wax aan meesha qaban ah in aayaroo dhalatay uu yidhaahdo waan raalli gelinayaa gobollada waqooyi. Farmaajo hadduu Hargeysa imanaya maanta wuxuunbaa inoo cuntuntaa inuu yidhaahdo waan idin ictiraafay ama Somalilan ictiraafkeeda hala siiyo, ama waa naga madax bannaantiin inuu maanta yidhaahdo walaaltinimo iyo Soomaalinimo guudna aynu ku wada noolaano. kolley dee waa dad aynu af iyo
iyo midab iyo diin baynu wadaagno. waa dad Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed sharaf bay naga mudan tahay. hadalkaygana waxba sii badin maayo. anigu waxaan leeyahay madaxweyne Farmaajo Soomaaliya waxa ka dhigo ilaahayna ha barakeeyo oo nabadgeliyo ha siiyo. waa dad islaama, waa dad Soomaaliyeed, waa dad walaalahayna, laakiin innagu dowlad gooniya baynu nahay. marka waxaa inala gudboon haddii uu Farmaajo yimaadana inaynu dee madaxweyne Soomaaliyeed oo waddan Soomaaliya la yidhaaho jaarkeenna madaxweynaha aynu soo dhoweyno sidii aynu hadduu ka Etoobiya inoo yimaadana u soo dhoweyn lahayn. hadduu mid kaloo meel kale ka yimo waddamada jaarka ahina inoo yimaado aynu u soo dhoweyn lahayn. maanta falanqayn kale iyo isdhexyaac kale iyo fadqalalo kale iyo uma baahnin sheekooyin kaloo cusub. waayo waxaa la yidhi geed walba in dhibtaa way hoos taallaba la yidhi. innagiibaa maanta inaynu masiirkeena ka tashanno, waddankeenna u tashanno, mucaarid iyo muxaafidba aynu danteenna garanno, nabadgelyada aynu ilaashanno ay nala gudboon tahay. madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdina waxaan leeyahay yaan lagu hoos dhigin baan leeyahay Soomaaliya, oo aan lagu odhan Soomaaliya aynu ku biirno. waayo wixii berigii hore naga qabsaday ama dadkii naga horreeyey ka qabsaday waynu ogeyn, halkay nala gaadhayna waynu ogeyn. in markii dambe dadkeennii la ugaarhsaday oo midba midku ka aqoon-yahansanaa ama aqoon-yahanadii ama intii waxgaradkahayd laga soo galay oo maalinba mid la dilayey waynu maqalay. dee ummad baa inaga maqan, aabbayaasheen ayaa inaga maqan oo darteen u dhintay ama waddankan nabadgelyadiisa awgeed ama uu ahaa go-aanka ay qaateen ee ay u dagaalamayeen inaynu nabad ku noolaano. markaa inaynu ayro dhalatay iska nidhahno maanta Soomaaliya aynu raacayna dee wax nala gudboon maaha. marka anigu waxaan leeyahay ummadda reer Somalilan madax iyo midjaba waxaan kula talinayaa ama aniga fikirkan anigu amaan ka aaminsanahay ay ila tahay inaynan maanta iskaga ciyaarin nabadgelyadeenna aynu haysanno. dad islaama baynu nahay, nabadgelyaynu haysannaa. waxaynu ku nool nahay nabadgelyo iyo islaamnimo. ictiraafkan ay sheegayaan hadday macaa laftiisa haystaan, ictiraafkii ilaahay baynu haysannaa. adduunyaduna waa maalmode. qof kastaba dee halku joogaba inaynu waxeenna aynu sii kabkabanno, aynu mashruuciyo iyo sidii dhallinyarada iyo ummaddeenna shaqo loogu abuuri lahaa ama warshado waddanka loo keeni lahaa ama sidii waddankan loo sii horumarin lahaa hawsheeda aynu galno mooyaane arrimo kaloo siyaasadaysan oo meel kale ka yimi ama gacmo meelo kale inaga yimaado uma baahnin. Soomaaliya maanta intaasoo gacmood baa ku jira. ilaahay ha u gargaaraan leeyahay. ilaahay gacmaha shisheeye ku jirana ka saaran leeyahay. waayo gacanta shisheeye gacanta lixaad ayaa kolba inta meel laga qarxiyo ama meel wax laga farsameeyo haddana la odhanayaa hiil walaal. kuwan qudhooda ku jira ee isaga dhigaya masaalaxada laftooda ayaan anigu aaminsanahay inay gacan shisheeye oo ku jirta ay tahay Soomaaliya. ilaahayna ha u gargaaraan leeyahay, gacanta shisheeyaha ka saaro. waa dad Soomaaliya, ilaahay
nabadda ha u soo celiyo, ha u waasiciyo, ilaahay qalbigooda ha mideeyo, ilaahay inagana wanaaggeenna iyo sidaynu wax isula garan lahayn iyo waxgaradkeenna aynu garan lahayn danteenna ilaahay qalbiyadeena ha waafajiyo. islaamnimadana ilaahay haynagu dilo, haynagu nooleeyo, haynagula dilo. ictiraafka ilaahay ayaa inoo haya, dad islaamayno ictiraafka waa laa ilaaha illa maxamed rasuulullah. waxaynu u baahanay maanta ma jiro oo kaleo meelo kale inagaga yimaadaa, ama cid cusubo maanta aynu raacno aynu gaari kale dabada qabsanno. markaa adduun weynahana dee adduun weynaha aynu ku noolahay adduun weynaha aynu ku noolahay maanta wad aynu ka mid ama caalamka hadda aynu ka midka nahay, haddii dee ilaahay qadarina waynu ictiraafi doonaan, haddii aanu ilaahay qadarina ictiraafka ilaahay baynu u baahanay. dad islaama baynu haye tan ictiraafka yare gaalada waad waddo ay leedahay ictiraaf bacaynkana tuutaaya haba haystaan badde. waxba dadka yaan la majra habaabinin. farmaajaa imanaya farmaajo dee waddankiisa waxa qabto halkiisa ha joogaan leeyahay anigu. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.